Vocabulary eraya cusub with useful sentences oo jumladu waxtar leh wata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Vocabulary eraya cusub with useful sentences oo jumladu waxtar leh wata. Accident waa shil. Accident meaning ama means waxaa lagala jeedaa an unpleasant aanan fiicnayn, an unintended happening wax aanan loogu talagelin inay dhacaan, that sometimes kaasoo marmarka qaar causes sababa ama keena injury dhaawac or death ama dhimasho. An example tusaale, he was involved in a serious accident. Wuxuu ku lug lahaa shil halis ah oo dhacay. He was involved. Wuxuu ku lug lahaa in a serious accident. Shil halis ama khatar ah. Highway code waa official rules, sharciyo rasmi ah for drivers ee darawalada and other users iyo kuwa kale ee isticmaalo of public roads, wadooyinka waaweyn dadka isticmaala. Public roads. Highway code waxaa la yidhaahdaa xeerka ama sharciga highwayga. Waa official rules, sharciyo rasmi ah for drivers looga baahan yahay darawalada ama loogu talagalay darawalada and other users iyo isticmaalayaasha kale of public roads, wadooyinka publicada ah. An example tusaale, we must follow, waa inaan raacnaa the highway code, xeerarka ama sharciga highwayga to avoid accidents, si aynu ugu fogaano ama uga hortagno shilalka. Junction waa isgoys. A place goob ama meel, where meeshaasoo two labo oo more roads ama wadooyinka badan meet ay ku kulmaan. A place meel ama goob, where meeshaasoo two labo or more roads ama in ka badan wadooyin ah meet ay ku kulmaan. An example tusaale, follow the road, raac wadada to the junction ku keenayso isgoyska and then kadib turn left, bidix u leexo. An example tusaale, follow, raac the road wadada to the junction ee isgoyska and then kadib turn left, bidix u leexo. Road humps micnaheedu waa raised parts, qeybaha soo kacsan of a road ee wadada kor u taagan, that reduce kuwaasoo dhima ama yareeya the speed xawaaraha of vehicles ee gaadiidka shaaglayaasha ku socda. Askari jiif mahalla Af-Somali. Road humps waa raised parts, qeybaha kor ama sare u kacsan of a road ee wadooyinka la dhiga ama wadooyinka ah loo sameeyey. Road humpska waa raised parts, qeybaha sare u kacsan of a road ee wadada, that reduce taasoo dhinta ama yareyso the speed xawaaraha of vehicles ee gaadiidka ama shaaglayaasha. An example tusaale, slow down, yaree ama hoos u dhig, dhin. There are road humps ahead, hortaada waxaa ah meelo taag ah oo kor u kacsan. An example tusaale, waxaa lagu yiri slow down, dhin ama yaree xawaariha ku socota. There are waxaa ah road humps ahead, hortaada waxaa ahaaday meelaha taagtaaga rayska yara kacsan ama askariga jiifo.
road humps. Side path waa minor path, waa wadiiqo yar leading off the main road ee wadada weyn kugu hagayso. An example, tusaale, the taxiga used wuxuu isticmaalay a side path, wadiiqada dhinaca ama dhanka ah, to avoid si uu uga fogaado the traffic jamka trafikada on the main road ee wadada weyn ah. waa side pathkii ka maray yuu ku socday. Traffic island waa an area, goob ama meel, in the middle, bartamaha ama dhexda of the road ee wadada, where meeshaas so you can stand, aad istaagi kartid, and wait for, kuna sugi kartid, cars, gawaarida, to pass, inay kugu dhaafaan, until it's safe, ilaa ay ka noqonayso meel safe for you adiga cross aad ka goyso. An example, tusaale, Ali stood, wuxuu istaagay on the traffic island before he crossed, intuusan goyn ka hor the road again, mar kale wadada. Ali stood on the traffic island before he crossed the road again, intuusan goynin wadada ka hor ayuu istaagay. Thanks. ألف لا كردبي ألف لا صدبي ألف لا قضي